wada jirkii iyo in la ilaaliyo haybadii qaran oo ciidan in la ilaaliyo waxa keeni karo dhibaatada ama ciidanka u keeni kara kala faquuqa ama ciidanka ku abuuri karo kala taga iyo dhibka arintaas meesha inay ka baxdo weeye ujeedada munaasabadan maanta dugsiga Harqaboobe waxaan ciidan weynaha iyo saraakiisha iyo macallimiinta aan ka codsanayaa amarna ah inaysan dib dambe u dhicin wax keeni karo ciidanka bayskan joogo inuu kala aado deegaamo kala gadisan soo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed arinta ayada way ku bogaadinayaa way ku dhiiri gelinayaa waana waajib insaaran ina gudataana waa rajaynayaa ciidan weynahana waxa laga doonayaa waxa waaye inay u hoggaansamaan amaamirta madaxda wada jirka Soomaalinimada cadaaladda iyo halkaan waxa isugu kaana keenay inay tahay waxaan ka shaqeynaa inay tahay hooy qaran qodobkaas waxaan rajaynayaa inaan hoosta ka wada xariiqno annagoo dhan hadduu Ilaahay idmo qodobka labaad ciidanku waxa xaraan ka ah runtii qabiilku waa ka xaraan siyaasaduna waa ka xaraan gurubaysiguna waa ka xaraan waxa jiro dad danley ah oo dawladnimada iyo in la hormaro midna aan taageerin mar walbana dalka iyo dadka iyo qarannimada ku aashido waxa loo baahan yahay si qof kasto annaga naga mid uu gaaro mustaqbal fiican oo qaran in la ilaaliyo oo la iska ilaaliyo waxyaabaha khatarta keeni karo oo ah mabda'a qabiilka oo ah mabda'a siyaasiga oo ah mabda'a dadka danleyda oo ah kala qaybinta oo ah in si ujeedadeena iyo yoolkeena fog annagoo rabna inaan gaarno inaanan gaarin kuwa ku shaqeynaya oo badan inay jiraan astaamaha ay leeyihiin astaamaha aan soo sharaxay way waxaan rajaynayaa hadduu Ilaahay idmo annaga oo dhan inaan noqono dad gacanta isqabsado isku aragti ah taladu ay ka dhaxayso is ixtiraamo runtii qofka kale fikirkiisa uu siiyo taa ayada hadday imaadana waxa la gaarayaa guul waxaan rabaa marka hoosta inaan ka wada xariiqno wax kasta oo keeni kara dhibaato iyo wax kasta oo caabuq keeni karo iyo wax kasta oo keeni kara khilaafaad iyo wax kasta oo keeni kara ujeedada dawladeed oo aan hayno inay wax u dhimi karaan inaan iska ilaalino oo aan ka gudubno arintaasna hoosta inaan ka xariiqno Ilaahay hadduu idmo waxaan rabaa hadalka inaan ku soo gabagabeeyo anigu taliyihiinni baan ahay halkaana waxaan u imid inaan runtii ciidankan qaybta 22aad maadaama aan ahay taliyihii ugu sareeyay inaan runtii sameeyo barnaamijyo runtii deegaanka looga xoreynayo nabadiidka ciidankana dib loogu abaabulayo ayadoo aan suuro gelinayno ciidankana inuu noqdo ciidan la garan karo ujeedadiisa la garan karo xaaladiisa la garan karo tiradiisa la garan karo hubka uu haysto la garan karo gaadiidkiisa laakiin hal qodob anigu ma rabo halka qodob aan rabin waa idin sheegaya kuwa badanna waxaan rabaa inay runtii ka arkaan fariintayda meesha maanta aan taaganahay oo Harqaboobe aniga ciidan warqad ku qoran oo warqad iskaga qoran oo aan lahayn ma aha midka mas'uulka aan ka noqonayo aniga waxaan mas'uul ka noqon doonaa ama mas'uul aan ka ahay waa idin cadeynaya waa ciidan warqadna ku qoran sidaana u nool oo fadhiyo oo howlgalay waxaan idin ballan qaadayaa runtii inaad heli doontaan cadaalad iyo sinaan iyo ixtiraam iyo qof walba xuquuqdiisa inaan siiyo qofka dhibka iyo caqabada inku ah oo meesha ka maqan oo nahoolaalayo oo caqabada ah oo doonaya mushaarka inuu ku qaato barkad oo doonaya booyad inuu wado oo doonaya inuu macdaar shito oo doonaya sandaqad meel inuu wax ku beegto oo doonaya maxaa la oran jiray inuu noqdo qof maqaayad ka shaqeeyo dadkaas oo dhan insha Allah bidnillaahi kariim inaysan ciidan noqonin waxaan rabaa oo ninka codsanayaa insha Allah bidnillaahi kariim
inaa u diyaar garowdaan meesha hadda aan ugu imid qaybta oo aad soo gaarsiiseen inaan si xowli ah hadduu ilaahay idmo uga dhaqaaqno si mar dhow loo gaaro deegaamo badan oo nabaddiidku in la xoreeyo yoolkeenna koowaadna wuxuu noqon doonaa ceelbuur hadduu ilaahay idmo insha allahu guulaysta khayr baan idiin rajaynayaa waa inkaga mahad celinayaa shaqadii aa qabateen waxaad tihiin wiilashii soomaaliyeed oo sharfanaa oo geesiyaasha ahaa dalkan adinkaa iska leh dalkan dad badan baa waxay ku fikirayaan oo cadow ah inaynan annagu aan noqon dad xor ah maskaxda xorka ah caqliga xorka ah awoodda ciidan xorka ah siyaasadda xorka ah qaninimada iyo dalkan resourceskiisa maxaa la odhan jiray qani ka ah waxaa la doonayaa mar walba inaan ku noolaano dhibaato dal aan